بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa la yiraahdaa Qadri Saciid. waxaan ahay registered nurse. sababta channelka loo furay waxa weeye inaan 10 badan ka qaadano. codsi badan ayaa liga sameeyay oo reef familkeyga kamid ah iyo dadka asxaabteyda ah. waxaan kaga hadlaynaa waxyaabaha caafimaadka ku saabsan oo sahlan oo qofku uu sameyn karo oo aanan wax dhibaato aysan lahayn. waxaa maanta ka hadlaynaa waxa weeye inflammation wuxuu kala baxaa labo mid waxa weeye dhaawac markii dhaawac ku gaaro ama meel ay ku dilaacdo ama wax mid ku xagato ama waxay ahaataba meeshii waxay noqotaa meel yar oo dhiig ka daadanayo kadibna way reysataa way barartaa way xanuuntaa kadibna way reysataa taasi waxa la weeye inflammation-kii waa dhacay markii dilaac yar jirka gaaro jirkina mataqaanaa difaaciisa ayaa mataqaanaa ilaahay u sameeyay iyo meesha ku reysanaysa. هذا ما أنت وحنا كنت في الجار أسينين وحوي information كجودها أو مدير أو جودها كتيرة أو قفك وسندريمين لكن عذرا دورن كأس أسمان سيدا أو شيء جورنال أن كلا كل ماي وقت هراء أو سو صار in time magazine جورنال كاسو حوليه هاي information وعذو أن حوليه هاي جورنال كاسي بق وهراء وحكو صورا waxa ku qoran uu qof leeyahay inflammation-ka waa dilaaga sirta ah ama dilaaga aamusan wuxuuna arintaas ay saameynaysaa inuu asaaso cudurrada waaweyn oo maanta loo baaba'ay ay kamid yihiin kansarka sokorta alzheimer waxa la yiraahdo waalida iyo jarayska keena kansar kala duwan oo noocyo kala duwan ah arthritis iyo kuwa kale oo aan la ogeyn laakiin waxa la ogaaday in xirdoji they don't think we have to keep the kidneys. So just I cannot information. You have to stop, take a breath, and then you stop. marka waxaan ka hadlaynaa maanta information-ka waxa keena iyo waxyaabaha loo watay karo. casharada soo socda waxaan kaga qaadanaynaa qaasatan waxaan ku calashaan aan saaraynaa fiiro gaar ah raashinka. information-ka maxaa keena? inflammation-ka muxuu yahay marka ugu horeeyo? inflammation-ka muxuu yahay marka ugu horeeyo? inflammation-ka wuxuu weeye waa gudaha ayuu ku jiraa. qofkii ma dareemi karo mana garan karo haddii uusan raadinaynin ama uusan leeyahin uu garan karin ama waxa uu raadinay uusan aqoonin. calaamadaha lagu yaqaan marka hore ka hadlaya. calaamadaha lagu yaqaan waxa weeye qofkii oo caajis fara badan isku arka ama Soomaalida ay tiraahdo juuc. qofkii oo isku arka xanuun muriqiyo damqada korkiyo damqada oo leeyahay meel walba ay xanuunaysa waxa madax xanuun aan baxayn caloosha oo fariisata qofkii oo naaxa oo aan waxay u baahnay ku naaxa ama caatooba waxa kamid ah caloosha fariisata ama shuban uu ku dhaco noqnoqod badan oo waxyaabahaas ah iyo niyad xumo iyo mataqaan qofkii ama caro tira badan ama si qalad uu maanta u fikiro inkastoo calaamadahaas aan soo sheegnay ay u sababi karaan jirooyin kaleeto haddana inflammation-ka markay calaamadaha lagu yaqaan weeye. marka waxaan ka hadlaynaa maxaa keena inflammation-ka waxa weeye gudaha ayuu ku jiraa sida markii banaanka midi ku xagato ama midi ku xir ku sarto ama dhagax ku xagto sida jirkaada ay u reysanay u dagaalamay ilaa ay meeshii xiranto ay reysato ayuu gudahana dagaal sidaas oo kale ka socda calashaan jirkaada difaaciisa ayaa heegan ah oo raba inuu dagaalamo wixii uu ka dagaalami lahaa dagaalka uu hayana ma aha dagaal dhamaanayo. marka maxaa dhacaysa in adiga dhan aad taagan tahay sida qof nal ku shidan yahay oo kaleeto oo jirkaada istaanbay u maantran uu yahay uusan nasan karin uusan qaban karin waxyaabihii kaleeto ee jirka u baahnaa kabidi dhiig samayski korkiyo la cusboonaysiyo waxyaabo badan oo la yiraahdo maintenance la yiraahdo oo qaban karo uusan qaban karin oo maanta dagaal u taagan yahay. marka taas waa ka hadalnay waxaan ka hadlaynaa marka hadaad waa si falanqayn doona casharada soo socda laakiin guud ahaan ayaan maanta ka sheekeynay waxyaabaha ugu wacnay maanta ka hadlay ugu horeeyo waxaan ka hadlay maxaa keena inflammation waxyaabo badan ayaa keena laakiin kuwa ugu waaweyn waxay yihiin waxa keena raashin xumada oo ma raashin qalad oo la qaato waa ka hadli doonaa waxa keena calishan jawiga aad ku nooshahay ayadiga oo jawiga saxadiisu aysan fiicnayn waxa kale oo keena adigoo cudurro kale ay jiraan oo dhaqaatiirta ay mataqaana kala xiriir doonta taas dib ma laha laakiin labada aan ku focus gareeyna waxa weeye waa raashinka maxay tahay waxyaabaha inflammation keena maxaa ugu wacan inflammation waxa keena waxa weeye wax allaale wixii warshad la warshadeeyay warshad soo maray la kala safeeyay
mataqaanaa nuxurkii wixii markaa jirka u baahna ama sidii alla u abuuray ee dhulka aysan uga soo bixin aan ahayne inta laga bedelay mataqaanaa midabka laga rogay nooc kale laga sameeyay waxaan ugu sahlan oo tilmaana u soo qaadan karaa ay tihiin burka cad ama bariiska ama baastada burka cad muxuu yahay burka cad wuxuu ka samaysan yahay galley galleydii marka sida dhulka uga soo baxday mayay tahay waa maya galleydii waxay ka samaysan tahay haddaa aragto waa tusi doonaa casharada soo socda inta cad kaliya oo aanan ku jirin qoloftii oo aanan ku jirin fiberkii oo aanan ku jirin jaamka dhexda ku jiray oo aanan wax la ku jirin cadka un baa la soo bixiyay wax allaale wixii nafac ku jirana waa laga qaaday oo waxaa loogu talagalay in ay bur noqoto ay jiijiidanto oo macaankaasa looga raacay marka haddii marmar dhif haddaa cunto wax kulleyba dhib weyna ma keenayso laakiin haddii burka cad iyo bariiskana waxa weeye nuxurkii oo dhan baa laga qaaday oo waa la safeeyey oo waa la taqaanaa waa la safeeyey oo waxaa laga qaaday qoloftii iyo wax allaale wixii ku jira waa laga qaaday wuu dhaldhalaalayaa bariiska haddaa aragto laakiin bariiska sida lagu abuuray haddaad aragto waa u ka duwan yahay midka maanta aan cuno waxaa kamid ah baastada ayaduna bur bay ka samaysantaa waxay soo martay warshadeyntii marka jirkii haddii aad baasta iyo bariis iyo aad cunto iyo maxaa idhaahdaa wax allaale wixii bur lasoo safeeyey ah maxaa dhacaya korkii inuusan helayn wax allaale wixii u baahnaa inaysan ku jirin cuntada cunayso oo korkii uu dareemayo in nafaqadii laga qaaday uu asaga mataqaanaa uu dagaal gaara uu sido sokorta ku mid ah sokorta waa isla ognahay maanta wax muran ku jira maaha inay sokorta cudur keento aysan waxyaabaha jirka qariba ay kamid tahay sokorta maxay kala tahay sokorta laba ay kala tahay sokorta mid waxaa la yiraahdaa dhaqsi ayay korkaada gelaysaa like haddii aad sokor inta shaah ku qasato aad cabto fruit aad juicekiisa aad cabto isla markii waxay galaysaa dhiiggaada oo sokortaada way kacaysaa oo korkaada wuxuu u baahan yahay inuu soo daayo xameetida insulin tiro badan ama xameeti baa la yiraahdaa xameeti in insulin tiro badan uu soo daayo si aysan sokortaada u kicin bariiska iyo baastada iyo burka canjeerada hawaayada wax allaale wix lamid ah ayaguna sokor bay noqdaan waqtiga ay sokorta ku noqon lahaayeen ayuunbaa kala dheer ma ogiye wax allaale wixii saa u cado aa cunto sokor ayay noqonayaan korkaada mar walbaba wuxuu u baahan yahay insulin tiro badan uu iskaga celiya sokortaa kacaysaa min imaan marka maxaa looga hortagi karaa waxyaabaha dajiyo korka ee inflammationka ama aan koos garayn ama sahliye maxay yihiin waxyaabahaas waxaa kamid ah waan garanaynaa qudaarta wal cuno waxaa kamid ah wax allaala wixii anaga af Soomaalina looguma sheegin wax aan ka aqaano grains la yiraahdaa waxyaabaha aan ka aqaano waxay yihiin kaliya sareen iyo masago laakiin waxaa jira 100 nooc oo kala duwan jira oo sareenka iyo masagada la mid ah oo jira oo la yiraahdo rye spelt waxaa jira baaliya jirto waxaa jiro way badan yihiin ciidaas ka badan yihiin waxa laala wixii digir ah digirta ma aha digirta madow iyo boqol kaliya ma aha digirta sokor kaliya in lagu cuno uma baahna oo waxa dalacba laga dhigan karaa insha Allah waa intusi doonaa marka soo socdo digirta oo kamid tahay chickpeaska ay kamid tahay salbukada oo kale ay kamid tahay black eyed beans ay kamid tahay lentils oo noocyo kala duwan leh intaas oo dhan oo laga sameyn karo raashin aad macaan oo uga maaranto protein uu ka buuxo jirkana uu baahan yahay maxaa kale u baahan anaga in sisinta oo kale sisinta oo laga sameyn karo sauce oo la cuni karo sisinta saliid kaliya oo baan ka sameynaa ama ayadoo macaan oo baan cunaa laakiin waxa jira noocyo waxyaabo kala duwan oo sisinta laga sameyn karo insha Allah casharada soo socda ayaan idinku tusin doonaa maxaa kale ka macnaa abuurka seeds baa la yiraahdaa ingiriiska oo miraha yaryar ee loogu talagalay in la abuuro ayaa sidoodaba loo cuni karaa ay kamid yihiin miraha bocorka miraha qaraha miraha sisinta abuurkeeda ay kamid yihiin intaas oo miro kala duwan waxyaabo kale fiiro gaar ah u yeelan doona waxay tahay herbs and spices waxa laga wada reexaanta iyo kabsarta iyo waxa miintada iyo spices kamid ah xawaajiga turmeric all this waxyaabo kala duwan ay ku wanaagsan ay waxyaabo u baahan tahay in aad ka siiso saliid ahaan maxaa loo isticmaalaa way badan yihiin saliidaha marka way badan yihiin noocyo kala duwan ayaan soo sheegi doonaa inkastoo saliidu wax had gaar ah oo aan inaan uga sheekeyn aysan u baahnayn maxaan kaloo ka sheekeyn lahaa maanta qudaarta si badan loo cuno marka waxyaabaha ugu weyn mataqaanaa
jirka u baahan yahay marka ugu horeeya inaad samaysid waxa weeye jirka wuxuu shaqeynayaa habeen iyo maalin ma nasto wuu shaqeynayaa wadnaha wuu qaraacayaa daqiiqad walba intaa noosha maskaxdu way shaqeynaysaa intaa noosha maalintaa dhalatay iyo maalintaa dhimatay waad neefsanaysaa intaasoo mashiin oo iska daba rogaya korkaada ilaahay ku sameeyo qurux badan oo si aad u wanaagsan u shaqeeya maxaa u baahan tahay inaad qalabka ay ku shaqeyn lahayn aad siiso bur iyo baasto iyo bariis iyo hilib ma aha cuntadooda way ka duwan tahay maxaan sameynaynaa marka qudaar tiro badan aan cunaynaa digir tiro badan aan cunaynaa mirihiyo tiro badan aan cunaynaa herbs and spices hilib iyo digaag iyo wixii lamid ah marar dhif ah isbuuci mar ama labada isbuuc mar ka badan inaa cuno uma baahnin maxaa kale malayga wuu fiican yahay inta cuni karto biyo badan wax laala wixii juice la yiraahdo inta hadaa yareyn karto iyo wax laala wixii Coca-Cola way fiican tahay insha Allah waa ka wada hadli doona caawa 10 inta soo idinku igahay insha Allah next week asbuuca soo socda ayaa inoo balan